idin kaga sheekeynayaa hadda ka hor anigoo ka imid miyi oo 2 sano kaliya magaalo joogay gabar yarna ah walibana nimanka Soomaaliyeed dhinac bay ka raran yihiin waxay jecel yihiin gabdhaha cadcad haddaad madowdahay oo maanta dhan ag marayso waxaad moodaa xal inaad dambi ka gashay markaan imid markaa iskool baa la geeyay iskool baan dhiganahayay laakiin naag weyn oo baadiye ka timid oo waxaan ahay ilaa 17 gaadhay uqdada madowguna waa igu jiri bandhiga reeriyowga waxaan ka dhageystay bari 9 gabdhood oo Soomaaliya oo quruxda ku tartantahay yimaadeen Jubba saacad markay 2 saac tahay balaayaa dhacday who cares anigu waxaan idin maanta horta waa inaad tijaabisid Soomaalida arintan uqdadaahuna ka harto maxaa taagan gabdhihii Soomaalida oo wada cadcad oo labisan kuwii raaxamarka kuwii carabta adduunyo hameenkii intaana seexan baan maryahan ku tagi lahaa meel dhigtay kabahaygi meel dhigtay intii markay tahay 7 o'clock baan labistay taxi baan u yeertay Jubbaan sii istaagay nimankii Soomaaliyeed oo dhan meelay joogaan maanta Jubba diyaar lagu yahay mid shaqeeye iyo mid baaga muuda iyo mid homeless oo nin walba wuxuu leeyahay waxaad arki jidhay miyaa maanta imaanaya mise wax guryaha lagu hayay adreeskan fiirsaday dabaqa labaad qolka soo dhaweynta gabdhaha quruxda ku tartamaya waa fiirsaday waa soo galay nin baa marka hoos ka horay fadhiyo oo loo diyaariyay inuu gabdhaha soo dhaweeyo meel walba waxa taagan waxaan soo jiiray waxaad moodid xajka inay taraarayaan oo nimana ninkii markaan u imid waxbuu qorahayay wuxuu arkay culayska soo ag istaagay wuu ifiiriyay wuxuu isiri balaayadan maxay tahay maanta wuxuu yiri maxaa doonays soo nalooma yeerin baan ku iri luguma yeerin ma dhigi kara buteer uma laha way gudbiye wuu naxay wuxuu yiri maanta hadaa qoftaan gudbisay armaa lagu xiraa shaqada laga cayriya hoos baan fariistay waxaa la rabay gabdhuhu inay soo dhamaadaan 10:30 11:30 xataa waxa soo galaya ajnabi gabdhaha jeegaraynaya oo ma taqaana ajnabigu qurux bay yaqaanin sambaati yaqaanin kolbada tuure yaqaanin geesinimo yaqaanin qofka dadnimadiis kuwaanu se waa macadahay teenti markii la joogo hal gabar oo damba ma imaan neeba eeba ma guriyii baa laga doonayaa xabadu kama soo istaagin wadna diidu yiri doonaani hal gabar oo inta soo kacda ragga soo dhaxmarta maanta tartanka timaada waa la waayay nimankii gudiga ahaa nimankii kale waa yimaadeen meeshii baa la iigu yimid waa la arkay waxba la qiimeeyay koobkii horta tartanka farta la iga saaray oo wuxuu noqday wiil walba waxa la yiri wiilu adeeru yahay reerkiisa uga shakiyay markaas naagtiisu waxay ku tiri ragga cunto u karbay tiri markaad cuntada u karisana qof walba gacanta ugu shub misaga la karisan jiray doono marka waxay tiri markaad cuntada ragga saas u siiso ninka diidi doona inaad gacanta ugu shubta weeye ninka reerkaaga ku soo daba mara sidii buu yeelay
cunugii yaraa markii cuntada la bilaabayo raggi geeska fariistay ugu dhinac ugu xigsaday waa loogu shubay geeski markuu gaaro damcayna ugu shubay wuxuu yiraahdeen ninna igama dambeeyay qaadada igu sii kiiba noqday intii la tartanta markan waayo koobkiiba farta laga saaray bilad geesina waa la isiiyay 30 kuna maalintaas joogtay 79 kiiba waa la isiiyay